ندودا سو كهاد ليس موضوع آدي آد أمهيمة خاصة تدك مسلمين تدك الصومالي دا غربها جوغا وانا مسألة كصابسا قويسكا مسألة دا سوء مسألة دا جورك شيوخ ذو مركز جزاهم الله خير موضوع أي ما أنت نوقي حيان موضوع سينوك على صاريان بالحقوق آبها صارا حقوق جورك كصابسا حقوق أروسك قديسة كصابسا أي الشيوخ ذو جزاهم الله خير إنوك على صاريان وحنا نقول بلا بيان ندوده الشيخ الفاضل مصطفى هارون بإذن الله فليتفضل. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد ولا ليال قضية دان كصاب سيسان جوركا يدلين يرضى يوالد كدور كوليه أما waxa looga baahan yahay waalidku inuu qaato Ilaahay subhanahu wa ta'ala waalidka wuxuu siiyay dawrul wilaaya qaybta ah inuu wax maamulo oo uu maamulo ilmihiisa waxay shariicadu tilmaamaysaa gabadhu inaanay kaligeed guursan karin iyadoo aan weligeedii joogin ama bixinin waxa runtii mudan in yar la isdul taago baahiyaha qofka bini aadamka Ilaahay ku abuuray waa tiro badan yihiin waalidkana waxa saaran baahiyahaasi ilmaha uu dhalay inuu isku dayo inuu buuxiyo dhaqanka Soomaaliga iyo duruuftii uu ku noolaa mala baahida calooleed baa ugu adkayd markii wadanka la joogay sida awgeed bulsho muslima bay iska ahayd aabuhu ama hooyadu may seexan karaynin carruurtii oo gaajaysan si uu guriga raashin u keenana meel walba uu ka dhacay waxa la arkaa halkan markii la yimi baahidaasi in si uun loo xalilay solution loo helay laakiin xalkeedu wuxuu la yimi mushkilaad cusub mushkilaadka uu la yimi waxa ka mid ah nuduujka mubakirka ah bislaanshiyo degdega oo inan labaduba la arko intii lagu qaan gaari jiray in ka yar inay ku qaan gaadhaan intii ay dareemada qaarkood ku dareemi jireen in ka horeysa inay ku gaadhaan taa waxa u raacda in la yimi environment isna la isku daray rag iyo dumarka oo meel walba xumuhu u yaallo oo wadanada kala dhaqanka la yahay inaad Ilaahay caasida waa fududay waa ilbiriqsi waa inaad koolka kor u qaado umba ka xiga inaad si cibaadaysato waa adagtay waayo marar badan noloshu qaabka u dhisantaa ka hor imanaya sida ogeed wadanada tan zinadu waa wixii la isqasba xeerarka dawladda u yaala ama wixii raali la iskaga yahay zina maaha sasidaradeed social baa la aqbalay tacliinta lagu aqbalay suuqa lagu aqbalay dhaqanka lagu aqbalay waxaynu markaa la joognaa carruurtii aynu haysanay oo hore u qaan gaadhaysa iyo bulsho fasaxday ma ogolin markaa ama raali kama nihin in ilmaheenni suuqa galo inan iyo inantoona
su-aasha isweydiinta le markaa waa maxay xalku dawa in la isweydiiya haddaba haddii ilmihii uu dhergay waktigii wakti ka horeeya uu bislaaday suuqiina uu fasax yahay inana aynan ogoleen culjarkaasi suuqa ah ee fasaxa ah maxaa xal ah fadhiya guriga iyo in kabti iyo cadaadis la saaraa xal noqon maayo infijaar baa dhacaya waa explosion waa qarxayaan intuu qofku dul qaadan karaa limit bay leedahay baahida tan ha dareemin macquul maaha maanka ma gasho sidaa ogeed waa in xal la helaa xalku waa inuu noqdaa inuu waalidku isa saaro mas-uuliyadda ah inuu qaato oo sharci ahaanna saarayd inantiisa inuu u guuriyo iyo inankiisaba inuu u guuriyo oo mas'alada tan si ay si xalaala ugu gutaan inuu falowgeed sameeyo in lagu qaydo maaha markaa culture aynu naqaanay waa hore oo qaab inanta loogu guurin jiray ama inanka qaab loogu guurin jiray oo aan hadda kuu suurtagal ahayn adiga marka dhaqaalahaaga iyo awooddaada iyo tamartaada la eego walidaalika waxaynu leenahay nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhallinyarada wuu la hadlo wuxuu yihi yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa falyatazawaj war dhallinyaro nin kastoo awooda inuu guursado ha guursado ninnimo nin kastoo awooda iyo inta yare maharka iyo intan uu ku dhiganayo ninkii intaa yeeli kari waaya ha soomo ayuu nabigu tilmaamay dadka badh baa u yimi waxay dhahdeen aanu isu dhufaano ilaahay rasuulkiisiiyo baashan waabayna wareerisee hanaba dhaaftee sidaa xoolaa aanu isu dhufaano wuu diiday nebigu inay isu dhufaanaan atabatul xadiis baa ku soo arooray uu nabigu diidaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii markaa tabatul aan la ogolayn oo suuqgal aan la ogolayn xalku waa labada tanu soon iyo guur waalidku markaa xilka saarin waxa weeyaan inuu guurka kan fudaydiyo oo uu qaato oo u aqbalo baahidan inay tahay baahi ilmihiisa uu dareemayo uu gaadhayna wakti uu gudan karo haddii taa lagu qanco economically si unbaa loo maarayn karaa si unbaa mas-uuliyaadka loo qaadi karaa masalada in sha allahu tacaala kolleyba sheekha ka hadli doona laakiin anigu waxaan tilmaamaya waxa weeyaan waa mas'alo u baahan xilkasnimadeeda in la qaado ama guur jamaaciya ha la sameeyo ama guur dhalmo dib loo dhiganaya ha la sameeyo ama solutionka waa isla gorfayn kartaan idinka idin jirtaa laakiin no way suurtagal maaha wadciga kan inuu qof dhex joogo waa halkii ninkii carbeed ee gabayga tirinaya yidhi intuu gacmaha ka xidhu badda ku tuuray buu yidhi dabeetana wuxuu yihi war waxaan kaaga digayaa inaad qoydo haddaad qof intaadba gacmaha ka xidha badda ku tuurto haddana tidhahda war waa kuu digayaa imikabaha qoyin suurtagal maaha meesha tani waa sagas film life abaa suuqa ka socda life qof waliba indhihiisa uu ku arkayaa suuqa taagan magaalada qabta oo daawada oo ardada tagoo iskuullada iyo koolajyada iyo meelaha taga oo waxba ha dareeminadu waa hoqooyinadii badda la isku ridayay ee waa in la kala doortaa inay qoyaan iyo in loo guuriyo anigu markaa kelmadda waxaan kusoo koobayaa waxaynu u baahanay mas-uuliyaddaasi inaynu dareenno oo qaadno oo way outkeeda innagaa laynaga sugayaa solutionkeedu inagu inoo yaallaa yani intaynu iska fadhiisanayna maxaa la samayn wax badan baa la samayn karaa dee yani qof salbiya ha noqonin salbigu waa qof negative ah qof uun waxa xun uun arka oo optimist uun ah aan wanaagaba arki karin yani pessimist miyaa odhan jirtee qof uun aan wanaagga arki karin ee xumaha arka xumaha uun uu muuqday inaynu noqonin aan noqonno mushkiladdii wayna haysataa imaa inaynu tagno oo meel aan waxyaabahan qofka kicinaya oo linoo qofku dee noloshiisa caadiga iskaga jiro mararka qaarkood uu iskaba gaajoonayo
waxa maanu ka fakaraynin isbuu calooshiisa u buuxsan lahaa uu ka fakarayo inaynu tagno ima in meeshan la joogayo laakiin dee wixii solution loo helayo laakiin waan iska fadhinaynaa una ilaahay baan baryayaa inta badha suuqa galayaan wixii ii soo hadha kolbaad tidhaahdo labaa iga tegey 3 baa tegey aad tiraduna haysato kolbaa inta kugu soo hadha inta kale waa iska tegaysaa un wixii alla uu hagaajinayo subxaana wa tacaala isaga u taallaa marka dad adgu tirada haysatun oo aad tidhahdo waa sugaynaa un yaynaan sugina waynu aragnaa already way bilaabantay waa waxaynu aragno therefore maha inaynu sugno ilaa iyo keena ugu dambeeya la waayiyo ee waa inaynu communitygani uu fakara solution keenaa solutionkuna uu fududiyey halkan aad joogtaan hablaha iyo inamada waa la isku dari karaa waana fudud yahay waana laysu guurin karaa guur xalaala reerna waa laga dhigi karaa intaasaan kaga baxayaan